sida barnaamijkeennii hore aan ku sheegnayba waddanka Djibouti waxaa ka dhacay xus halkaas waxaa isugu tagay madax badan oo Soomaaliya dadkii ka qayb galay waxaa kamid ahaa hogaamiyaha madasha samata bixinta Soomaaliya ahna madaxweynihii hore dawladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo waliba ra'iisul wasaarihii hore waddanka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka socda dhinaca mucaaradka Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynahana waa ka soo hadalay oo waa ka qayb galay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti isna waa jooga xogo hoose ayaa soo baxay iyo kulamo Djibouti ku dhaxmaraya madasha samata bixinta madaxdeeda iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya bar waxaynu eegi doonaa arintaasi jaamacu soo dhawow inta bal arintaas baan jeclaynaa ka hadalay intayna ka hadlin dhawaan waxaynu barnaamij ka sameynay taliyii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Indhaqarshe soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جود هم بمدة الصومالية ملك استويتشوام وحلا سلام الله عليكم إني وارون نكاوديجا صاحب كنا والد كأه nin dalkan iyo dadka Soomaaliyeed u soo shaqeeyay barnaamij baan ka sameynay barnaamijkaasina wuxuu ka dhashay yaani isaga waraysi isagu bixiyay mid anagu aan isaga si gaara yaani aan u qasadnay ma ayna ahayn sida yaani de umadu mar walba ay ogtahayna de qof kaste oo bani aadama si unba wax u arkaa aragtiyo siyaasadeed lagu kala duwan yahay waa jiraan barnaamijkanaga baa marka cabasha ka timid sida aan maaragtay aan filayana yaani odaygu uu ka maaragtay waxyaalo aan maaragtay kulli oo dhibsaday ay ku jireen وجنرال وهليي وجيس الصوماليين ده عدن الله هاينا وشوا كدعدا waxa laga hadlahay ama lagu jiray isaguna uu maalinka dhawad ka hadlahay anaguna aan ka hadlaynayna waa aragtiyo siyaasadeed oo maxaan ku ilaahay qofba dhinac uu ka jooga weeyeen wax allaaliyo wixii gaf iyo khalada ee iga dhacay waliba yaani waxaan filayaa erayada uu dhibsaday inay kamid ahaayeen yaani ciidamada oo yaani inta badan xilliga isagu taliyaha uu ahaa iyo xilliyo ka dambeeyay yaani waxyaabo dhacahay oo dad badan ay ku doodayeen yaani ciidamo aan maxaan ku ilaahay to jirin ha yaani inay jireen tama ahmada isaga ula qasadnay laakiin xog aan haynay oo xilliga waliba waaga hore aanu maaragtay ka hadalay bay ahayd oo saraakiil badan oo yaani kala duwan oo saraakiil hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sareba isugu jira yaani lagu eedeynayay yee ahayd oo maxaan ku ilaahay waxaasay daba socotay mooyaane waa ka cudur wax waa ka cudur daaranayna wax kasta oo aabaha Soomaaliyeed jananka Soomaaliyeed haliyeyga Soomaaliyeed geesiga Soomaaliyeed aan qirayay geesinimadiisa ciidanka madaafiicdan aan marin inuu taliyo ah ma sha Allah xilli walba soo qabtay ha yaani xilli adagna dalkan iyo dadkan soo difaacay u soo dagaalamo naftiisa u horay ma mudna in lagu gafo laakiin siyaasadda foosha xun ee dalka ka jirta yaa keenaysa in raggi dalkan macnaha iyo magaca ku lahaa in maaragtay gaf naga gaadho ama yaani waxaan aan maaragtay aan ka sheegno yaani taasa keenaysa ma aha waxaan ula bareerayno annaga dadku way noo kala qiimaysan yihiin siyaasiga xun ee tuuga ee beeriqaataha ee dad cunka ee dilaalka ee diinlaawaha iyo sargaalka jananka naftiisa iyo waqtigiisa iyo maxaan ku awoodiisa iyo itaalkiisa dalkan iyo dadkan ku difaacay waa noo kala duwan yihiin laakiin de adoo kii xuma u jeeda yaa kii fiicna kula maray kii fiicna marmar maaragtay yey kula maray ha yaa ma isku ka gudbi ama ka soo ka maray adoo isugeen waa isla sii jiiraysa marka cidii la isla jiiray oo dhan waa ka cudur daaranayna qof Soomaaliyeed hatta siyaasiga xun inaan maaragtay isaga shakhsiyadiisa wax ka sheegna ma aha laakiin siyaasaddiisa xun iyo hogaamintiisa xun iyo taladiisa xun ee qarmuune uraysa un baa laga hadlayaa mooyaan isaga qofnimadiisa hadduu caruurtiisa banaanka la yimaadana oo isagu tunka soo saartana waa ka cudur daaranayna waa ka raali gelinaya General Indhaqarshe haliyey Soomaaliyeed wax kasta oo dhibsaday boqolkiiba boqol aad baa u mahadsantahay sharaf iyo karaamo maadan mudnayn waayay odaygana waa aad baan u raali gelinaa mar labaad waayay jaamacu aad baa u mahadsantahay Djibouti Shariif iyo Xasan Cali Khayre ma madashay ku metelayeen kulli de looda kaliya ma ahay saacidna waa joogay Soomaa saacidkee ساعدنا رئيس الوزراء ما شو يسوون ساعد كي كلا هركي عبد فارح شردون ساعد بجرته شنكي شنكي وانا هركي هي ساعد لو قروح بدن وي سوما لو عليه وي وهذا الكيد ساعد ما ساعد زي ساعد فارح شردون
tala qurux badan Hey. oo si qurux badan ما شاء الله dalkani hoggaan qurux badan Waa oo runtii. aqli quruxsan buu u baahan yahay talada quruxda badan in dalka ku hoggaan ما شاء الله waxaan rabnaa وانت انت اللي قوي dowlad qurux badan inay ka soo ariga ra'iisul wasaare qurux isna waa joogay meesha ما شاء waana الله. salaamaya أي. waxaa وانا weeye, كحجين كانوا nin- مرين مدرسة nin waxa weeye aad iyo aad u qiimo badan Ah, leh, qoyar socda. oo akhlaaq leh oo Aad iyo edeb qiimo leh badan. oo qiyam leh oo maxaan ku idhahdaa siyaasad qurux badan wato. siyaasad qurux badan wato oo suul qurux badanna soo qaad ما شاء الله ما شاء الله marka calaa ayati xaal ee ninka la yidhaahdo شريف shariifka iyo xasan iyo adigu wixii ka joogay dee kolley madasha horta xalay waa kulmeen كو wada hadallaa dhex maray كو xogaha soo baxaya odayga xasan aan haa ninka la yidhaahdo muxuu ahaa kii jabuuti joogay magaciisa muxuu ahaa اسماعيل ismaaciil cumar geelle Eh. magac miskiin lagama yahay timaqayoof ايه miyaa taqaanaa timaqayoof ما غيوفا ولي ما مغل ماشي راكم مغلا فديا ninkaasaa dhexdhexaadinaya adugu هي oo حال laga wada hadlaya isagii iyo ummadii jabuuti yaa dhexdhexaadin u baahan Ya. mid kaloo dhexdhexaadinaya isagii jabuuti in la dhexdhexaadiyo yay ku habboonayd kuwan dhahan war dadka dhaaf iimaanka allah kaa qaaday waa madaxweynahoodii ay soo dhahay dee maya in laga qabto yay ahayd kolka hore adduunkani waa wada socdaay fiiri maya suluux ma taqaana reer jabuuti ma rabaan isaga wareede rag un baa lagu ogaanaya inay dictaatoreeyaan Ah. hadda africa waxaa kasoo baxaya haween dictaatoreynaya naagti meesha ugu xumad ba ka bilowday wey naagti ilaa inkaaraydu hey aan arko hey ya meesha ila inkaaray iyo ka bilowday iga bilowday wax ila tartami karo ninkii dhaha waa tartamayaaba xidha hadda geelada waa u noocaa Hey. waa wax farqiga u dhexeeya Eh. saamiya suluuxu miyaa la yidhahdaa Ah. iyo maxaan u yidhahdaa dugeelle Ah. wax u dhexeeya ma jiro isagoo waa is qabtaa laakiin tan waxaa dhaafay Eh. sidii geelle in ay samaysato maxaan ku idhahdaa to manxiis toban xisbiyo maya manxiis inay samaysato hey gilla ma xisbu samaystaa geelle haa manxiis ku samaysato kaali Soomaalidu ma xisbi halkaas ka keentay dee axmed madoobi iyo xagee ka keenay geelle ka keenay soo reer qaadka iyo marka maca kan hadda deni hey farmaajo waagiisa manxiis mayna samaynin kuwan kale cali guudlaawo iyo qoorqoor iyo Ah. maxaan ku idhahdaa to lafta gareenba Eh. dhammaantood Manxiisyo iska socda oo La og yahay inuu dhimanin. makhaayad baa looga yeedhay ninka la yidhaahdo ninka la tartamaya cali guudlaawo Makhaayad? makhaayad isagoo fadhiya makhaayad baa inta lasoo qabtay kaali musharax marka Djibouti baa laga keenay xisbiga haa halkaasaa laga soo minguuriyey marka waaye marka Djibouti baa marka waxay ahayd Ismaaciil baa dhexdhexaadin hadda waxay ku habboonaan lahayd oo ay ku wanaagsanaan lahayd in Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geelle la dhexdhexaadiyo la bal horta adiga dadkan maxay iskiin dul dhigay maalin walba aad leedahay waa iga maarmi waayeen Ismaaciil dalku ka maarmaa hees dhiyada uu soo shidanayaa lagama maarmuu taagan hey ma haysan mid kale oo materi Walla ninka Afrika- nooma muuqna minaamna kuma war arag afrikaan ku fahmay hey ya samada Hey. fahmay odaga marka iyo isagiyo Djibouti hadday kuwan caqli leeyihiin oo wax un garasho leeyihiin oo ay Djibouti walaalnimo u hayaan dadka reer Djibouti waa walaalaheen kun jeer bay walaalaheen yihiin waxooda iyaga waxay u baahan yihiin in ay maamushaan in qof u maamulo oo caqligii iyo cilmigii iyo garashadii iyo siyaasadii iyo wixii oo dhan ba hal inuu isku qaato dadka intiisa kana la yiraahdo qof matali kara xitaa bal qof la mid iska daayay ma haysan mid kale matali kara marka horeba ka hor imaanaya taasay aad horta inay dhahaan dhiyo waa bal Ismaaciilow walaalow bal ummadan ka hor leh ha neefsadaane wax yar u yarkaadi maya aan idin wada hadashiin Hey. qaybiga ka socota intaas Hey. ay Hey. laakiin taa mayna dhicin macal asaf waa kalsooni darrada iyo in ayna iyagu isku kalsoonayn ee iyagii baa la dhexdhexaadinaya oo aan dhibba dhex oolinba oo kaliya raba kursiga inay kala riixdaan Hey. marka muhiimaddu waxay tahay waayahay waxaa la yidhi wuu dhexdhexaadinaya maxaa laga dhexdhexaadinaya shariif sida la ii sheegay waxa dhexdhexaadinaya wuxuu ku yiri Eh. niman yahowto shariif iyo ninka la yiraahdo xasan al-khayri iyo intii ay isku aragtida ahaayeen ninka iska daayay see u daayay daayay kursiga laba nin wada qaaday xasanna meelo ma socdo aniga waad aragtaan buri waa iska fadhiyaa meeshaas iska joogo iska suga buri isaga ama ka dhargi doona ama dhiman doone marka isagu maxasan wax gaar la rabaa isagu xasan buu la rabaa haa dee xasan soo ninkii yani bilad geesri uu siiyey maaha farmaajaad riday shalayna isagaa bilad gees la siiyey shalayna isagaa bilad la siiyey in uu nimankan kala hadlaa oo kursiga la yidhaahdo sidaa ku joog waxaa u hibeeyey ninka la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Geelle xasan ma Ismaaciil Cumar Geelle anagana waa la iskaanay daba dhigi doonaa dagaal buu hadda naga raba ma wala dagaalamaynaa si guud mama waa la iska dhicinaya Djibouti waa ka qabanaya anigu ma Djibouti ama marka Djibouti iska dhacay Djibouti baan nahay ha Djibouti aan baan Djibouti aan maxaa kala duwan hey
هي ما عيار بقى كويس أنا جبوتيانا أنا محن كوي هوا والبا أنا عيسى واي كسو قدرة كسو قدرة مركب مهمته وحوي اسكداية معنا دمية اسكداية ونين كان وداية تام كان حقاته تام كان وقدرة أنا أفرق حلك لما دقمنا حلك لما دقمنا عيب ويان بيروحان مدة نقول برينا وحن اسمه بدلي سنة أفرق سنة شريف وادي دي مركب يا حس على غير واقع قراضة اسكتشو سيدا يحكم مرزاري لكن ساعدي محن كوي إيه شريف شاعي شريف وادي دي أي شريف هو أنا العقد ما هيستبوش ماشي على العقد الحرادنا يعني تو حسن على خير العقد هيستو محن كوي هذا تو شركة وشقيان ومالها وشقيان أنا جبرك جبري ما وهليو ساعدنا وحبا ما هيستو ماشي نسنا وحكي لها روح بضم مرة روح بضم مرة ماشي وكره هذا أرجع لي هاي واحد قال نوشيك إسماعيل لا اسكما وافقينها إسماعيل عمر قال لك قعنا قرشة أو حسوت شدي قضي الصوماليات بانهاي أبا الصوماليات بانهاي وجاميو الصوماليات بانهاي إن محنكو إلى هاي وحان ربع نما يهوتو إن أن كان كده يسان كريتك أو إذا كتشيح أو إذا كسيح أو إذا كتشيف صلوها كرسي كان أدي يسان حاجة هتشوقي طبعا سلكريه وداية بالها إيه بلنقاء طبعا كاسم أيضا كوكب سنين صوت طبعا سلكريه وابد ما يجاب كله عمري ما هرب سو مودنتو وكذا سياشن جروي سوما تضواطن يتواصل ما يا 77 بمريا هذا 77 بمريا ما ها مركا بحسن نو اسديتن سوما ما حسن باكوين حسن باكيان مروا اسكو دا حسن كنت جروي سبحان الملك القدوس وعرض هذه حاجه وينينيسا markii waago taamkii hore markuu xilka qabanay meeqa jir buu 62 jir saageen la ka weyn هيري ولا ها ما أرنو كم هايسن أنا دعنا أكل دمينا دعنا كدمي ماينو لكن ماشي إنه شو مرة بنبا سوق شو كلام ماشي أنا وأنت مديدنا من رحلة يوا سو سموادن ما سوق كلام ما هم موادن حل يلوه تلا جلاي وده ما يستي مدحلات كلا بس أنا سومالي ما تام بقى قرن أنت ها لا تام سديس سنة مدحونا قف كب أنت سوق قرن بتسوق سومالي السوق سومالي سديس سنة قرن السوق سديس سنة قرن حقول هذا سديس سنة وده ما يستي هبا واي dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan jaamaco markii hada si caadi aan u hadalno Ismaaciil si aan caadi aan banu hadlay ma markii aan macnaha aynu toos u abaar Ismaaciil Umar Geelle dadka Soomaalida ah ama hogaamiyaasha Soomaalidu ay kaga dayan karaan masiibana lagu imtixaamay weey wax lagaga dayan karo on fool xumo ka ahayn ma jirto oo timaa qalalan weey meesha fadhiya dalka Djibouti ku naanaabay ku aas-aasay iska doonaya meesha inuu fadhiyo raba inuu aas-aas kale koonfur xamar u sameeyo ومحن كوي هذا يتماشى والسكتشو وحاسنا واحد قبل مهمته مركب وحوي إسماعيل عمر قيل حوي جبوتي حوجا وحياة بدن وكقبتي وجرا لكن وشركة واحد مركب عن حمان هاي ولا جد ينكر ما سديت نشرني كنا يا أنا ما أنت كجد ينكر هو جميع الصومالي ذو مؤقلة ننا إنه سديت سنة وحريرة شو جماشة تام كصومالي سافر سنة ما kuwa wuxuu rabaa 4 sano markii la gaaro in kaasi baxo ku kala yimaado wayna saad ku soo dhacaysa ku soo socotay hadda wixii dhici doon Ilaahay baa ogi saad ku soo socotay saasay way dhacaysa haddana nin 720 sano isagoo joogay haddana dastuurkiisii bedelay yaa waxay leeyihiin suhaye sumaha kala leeyahay libax dhalay marka ma dictatornimada laga deenay daha inta suro ma inta uu ka shaqeynayaaba oo uu rabaa haddana inuu ku qanciyo siyaasiyiintii kursigan hanka kala lahaa ayuu doonayaa inuu ku qanciyo in xasan dictator isku rogo fiiri xasan sheekh laba taan baa dastuurka Soomaaliya ogol yahay ama ha isku xigaan ama ha kala dambeeyaan Donald Trump Soomaaliya waxa laga soo dheegtay dastuurka Mareykanka laga soo dheegtay wuxuu doonayaa taam saddexaad inuu ku darsado ogow yaa Donald xogay Donald Trump soo ugu baa laba taan ka dhamaadeen Soomaaliya ha isaga aqligiisan ku sheegaya aqliga xasan sheekhna kaasoo kala waa maya wuxuu ku leeyahay laba taan isku xigtay xasan markay dastuurkii uu bedelay ba macnaha laba taan isku xigtay weeyay maya xasan dastuurkii uu bedelay wuxuu ku leeyahay 8 hore waa ka kac 8 cusub baan bilaabaya had oo ah 10 cusub baan bilaabaya oo shan ah ila dastuurkan shan baa laga dhigay eeg ya aqliga anaga uu rabo inuu noo isticmaalo yaa ka aqli xul isaga qofka Soomaaliga isaga ka aqli liito waa kee 8 hore hadal weeyo waxba kama jiraan oo tii Cabdullaahi Yuusuf iyo waxay la mid yihiin Shariifka iyo waxaas la mid yihiin Maaji iyo Soomaaliga hadda bari ma laga bilaabayaa way
بريمان كبلابنا 10 years او maxaan ku idhaahdaa to en 10 years oo cusub baan rabaa meesha inaan maxaan ku idhaahdaa joogo cid ka aqli badan yahay filimada iyo kartooyinka daciifka ha ula yimaado anagu waa fahmaynaa waa dhamaysatay taamkaagi 5 bilood oo dheeriya yaa nagala ka socota oo sanad doorkii hore naga raacday waliga meel loo bahay 5 bilood oo sheegaya مش بلاد واجي 5 bilood iyo 8 habeen farmaajo wasarad baa raacay kana sanad waa ka soo reebi doonaa sayra markuu sanadka dambe guuleysto soo agaran 5 bilood iyo 8 habeen baa naga raacday xasan sheekh tii baan ka dhiganaynaa oo rabnaa inaan hadda reebno oo aan ka guulsano xilligan maxaa ka sheekeynaysaa marka hadda shantii waa harsantahay ma ta xaraam bay ka tahay حرام بيكت وسوماليا وكلا go'aysaa mooyaane lagama yaabana xukun xasan sheekh madaxkaya Soomaaliya intuu ka sii jiro in dawlad Soomaaliyeed ay sii jirto lagama yaabana taas aniga iga soo Jubaland jamhuuriyad bay noqonaysaa koonfur galbeed jamhuuriyad bay noqonaysaa Puntland jamhuuriyad bay noqonaysaa jamhuuriyada madax banaan bay noqonaysaa sida Imaaraadka oo kala ma nin baan inuu taliya ma aqligiisa ruuxan dawladnimada Soomaaliyeed baa laga shaqeynaya kama ma looma baahna ma u baahaninba dawladnimada Soomaaliyeed waa u baahaninba maxaa nagala maqan haddaan dastuurka iyo heshiiska lagu ahaa la isku ixtiraamaynin looma baahna dadku adeer heshiis bay lahaayeen heshiiskii intan iska soo kaco fiiri tan iska soo kaco Ismaaciil Cumar Geelow igala hadal maxaan ku idhaahdaa to nimankan igala hadal annaga marka maxayawaan baan nahay maxaan nahay annaga maxay noo kala dooriyaan kan lala hadlayo kan kale soo laba hogaamiye Soomaaliya ma demaya kana wuxuu rabaa inuu kursiga ku sii joogo annagana fiiri sii joogista Xasan Sheekh jiritaanka dawladnimada Soomaaliya iyay ku xiran tahay hadduu Xasan Sheekh hadduu sii joogo koonfur galbeed way go'aysaa Jubaland way go'aysaa Puntland way go'aysaa bal meeshii marka Xasan Sheekh ciduu madaxweyne noqon lahaa isaga shakhsiyan baa loo rabin miya asagana rabinba حسن شيخ هدو سيتشو هي هدي حسن على خير يمادو أنا يصل لبن إنه سياسيين ما سياسي نظيفة وركان أبو وحو قادن كري قاتي أو ما أباهن دي ما أباهن أي حمو حبا كسونو يا أي حبا إنا لله وحايش يا وركاس فقي حسن أي سأقول أنه كمان نادي فقي شلي وعيري قروا تجينا لكن نباس بتشوفه ساكحون يا ساكحون دني نباس الدنيا ساكحون سوق حيزك دني وارهون ساكسيحون دني ديجان كيسي بتشوفه مرات بكرة است دل كيسي محاول عقل كيسي دني سوي حوالي سو تيسي سوينا إسلامي بكعنا يا وكذا كيسي وساردي وحنا لنا إسلامي بالك عيه محيط ضاينه حسب بقى هذا هذا لاي ودني هو يسومالي وكوهي hadday jirto ma jirto hadday jirtana waa dhif iyo naadir way yarta xogaa guryaha iyo waxyaalaha ma arag meelaha dhul banaan bay iska haystaan oo iska dhistaan dadka laguma saqajaamo soo garan kuwan yoomiye 1200 haweenay ka uriyaan iyo caruurtoodii banaanka dhigaan yoomiye bini aadan baa ku nool meesha fiiri waa maasan lugulay haddaad maqasho Xasan Sheekh iyo kooxdan Xamse iyo waxan meesha hadda bila Soomaaliya joogo baasha maasan lugulay dawladda ha ku gafin madaxda ma dawladda anaga ka dhigna mayaa iska dhigay mayaa noqon kara ma noqon karaan Xasan ma noqon kara Xamse ma noqon yaa noqon kara yaa noqon qof muska noqdo hadduu dawlad noqon karo soo kan uu ku noqday ayaa ka dhigay anaga soo kama naadhay ma kala noqon hadda ma hadda lagalama noqon kare waa kula dagaalamayna oo ka dhigayna inta un bay rabaan dib kula dagaalamayna waxba la isu reeban maayo godka la isugu galaya dalkan waa la badbaadinaya hadii kale waa la baabi'inaya wax ka dhaxeeya in la badbaadiyo maxaa la gudbo shariifiye marka in la badbaadiyo iyo inuu baaba'o wax ka dhaxeeya male anaga fiiri maalinki fiiri الله أنا حريستي أب محمد سياد برة مدحوني هو ردلك الصومالي أنا أقدم بي مقدشو سووا هبيني وقاح سوي حبا عنه وقاح هاي شال حسياد برة ها سؤال قرا دلك أنا حق بيقول لي واجب يقول لي هاي كحن إن كقبت واجب ويي نفط إذا أنا أهورو يقول لي هاي وكذا وأنا رشيد محمد برباري اللهم حريستي أنت محمد يدشيس كنا مجا مونة يمعناها عن لا هاي أنت وده حيس مقدشيك اسماعيل كويا حسن محمد سياد بره حكم كاي كويا لا تنسوا هاي حسن شيخ مركب أفسروا هياي محان ودي دنا إنه شخص خلق قدر صوت ما أقولين بعد ما هذا حسن سياد بره سياد الصوري سوءها كم سياد سنة غنية وحبون نوقبتي كم وحبون نوقبتي salaadii anu iskuul baan u kala hijray maxamuud mire la yiraahdo gaari dawladeed bay qaadi jiray oo taata oo dheer oo lacag la'aan
duhurkii markay tahay ka soo rawaxana gaari taata kale soo raaci jiray ama gaari wasiir saaran yahay soo qaadi jiray ama generaal baa soo qaadi jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah marka aan soo dareero ee sayidka marayno oto intaan soo gaadhin barxadda aan soo gaadhin ayaa gabi ahaan laamiga la xiri jiray ilaa guriga ummadda ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa Sakhaawadiin ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa area-daas oo dhan la xiri jiray ciyaalka ay soo baxayaan ardaydii maraysa jidka intaan taaganahay gaari kasta oo maraya ee macnaha iyo qiimaha qofka Soomaaliga oo lahaa gaariga qofka shacabka ah qaadaya ardayga isaga oo xushmeynaya shaatiga jaalaha ah ee uu qabo Soomaaliga garan baabuurta dawladana warkeed badaa askartu inta nooga degta baabuurta iyagu baabuurta gaariga Land Cruiser-ka ee maxaan ku idhaahdaa tuuraha iyo dabada qabsan jireen bas kolba ilmo meel ku dejin jiray kolba ilmo meel ku dejin jiray kolba ilmo meel ku dejin jiray sharaftaas iyo karaamadaas iyo cizigaas aanu ku soo korray oo aanu maxaan ku idhaahdaa ku soo barbaaray oo aanu wax ku soo barno inta kula soo ekaana Soomaaliya fahmin tiib inoo wada xasan maya nin maxaan ku ahaa jiingadaha guranaya oo askari difaac ka gelinaya jiingad inuu u difaaco xaraan uu doonayo inuu ku gato dalkan madaxweyne kama ahaanayo meel arka kacay baa leeyahay dawac farfariisay Xasan Sheekh ama Shariif ha la heshiyo ama Khayr ha la heshiyo cid doona ha la heshiyo wax heshiisa oo ka soconaya mare Soomaaliya ama way ku burburaysaa way ku baaba'aysaa ama sida anagu aan rabnay noqonaysaa wax ka dhaxaya mare dadka maanta kursiga doonay Shariif waxaan kula dardaarmaya on leeyahay meeshaada kursi adiga kursiga ku fadhiisan lahayd in kala saldanada la isma siiyo la isku mala casuumo la isma siiyadaas buu Xasan rabaa oo inuu dadkiya mar rabo waa ka dhigaynaa banaankaas laga marinaya fiiri wanaag baan rabnaa inaan kaga dhigna haduu diido inaa faraha la iska gelin adiga waxa xaqiijinayna saldanad la isasiin deha ma ha ka yeerin soo Xasan u bixiya mar sharci tani waa sharci darro Xasan ku doonayo ku sharci ah rabnaa anaga wax kale ma rabno 15 may waxaan rabnaa in doorashada la isugu yimaado dalka aad oo maasan tahay dalkan fiiri koox gaara dalkan male beel gaarana male bulsho gaarana male ummadda Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa aad oo maasan ummadda Soomaaliyeed koonfur oo dhan codkeeda ana ku hadlay ana reer koonfureed ana reer Muqdisho Xasan ma doonin waan la dagaalamaynaa af baan kula dagaalamaynaa aqli baan kula dagaalamaynaa dhaqaalan kula dagaalamaynaa si walba ula dagaalamaynaa banaankaas aan iska marinaa aad oo maasan tahay guriga markuu tago guriga markuu tago hadaan uga daba tagno oo hatta wixii uu xaday uu dhacay ee uu boobay aan ku qabsada aniga Jaamac Xasan ana dambiila laakiin intuu meesha jooga waqtigan uu dhamaado igama nabadgelayo aad buu maasan yahay saaxiibka Jaamac intuu baan qaatay baa la cilaaq dalbay aad buu maasan yahay saaxiibka Jaamac inta aan ku soo gabagabeeyna qodobkan intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo guul baa u rajaynayna ummadda Soomaaliyeed